جعلك وعشقك وقوني لكن حقوق إلا إلى لينا وباب قونية لذلك حاسس كينا حقوق ذو إلى لينا إنا وبتكوك حقوق ذو السملات هنو إلى لينا إنا وكلا حني ما إنه مسؤولية ومدار الحيث أنت دوني بهالنقطة وأنا ذو عدالة سميسا صدح خصلات وخصال كان أنصوش ابن كسو هرجيدا حتى أمضوه لي ما داني كل أغمان أمضوه صدح دانه ويكدمان ظلمك يا خيانة يا بنتا نبغر يا جري جري قصر بودست قصر مدد قصر قال دساي مالنتي قصر کی فرح لوگا قاداي ايا لدوان دمene kale naga guddoon jidka uu sii marayay ee qasrigiisa loo marayay aqal yaro cariish oo buul ayaa ka dhisan cariish baa ka dhisan boqorkii baa aqalkan ayaa leh waxa islaam duqa ayaa leh islaam duqa ayaa leh aqalkan aqalkaygu iga bahdilay cagaf mariyo qaada buu gabigiisa buurka tuuray salaadii duqra hay ma joogto way timid galabtii bay timiday meeshii waxay arkay wada laga dhigay meeshii markaas xagan ka wareegtay way weyday aqalkeedii xagan ay u wareegtay way weyday waxa taa qoriyay wax ka haray way weyday askar baa u timid waxa lagu yiri ka dhaqaaq meeshii ayaa markaa bay tiri maaniga qaldan mise dhulkii baa la rogay maaya dhulka laba rogin dhulku waa sax weeyaane xaka maqan sheegada lagu yiri markaa bay tiri aqal cariish oo buula ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday ma aragteen waxa la waa war laadahay saaka waa lagu waayay boqorkii baa yimid oo yiri aqalkaygiibu fool xumeeye qaado oo ma aragtaan kala tuura dadna waa la qaado buurtaas laga tuura aqalkaagii oo islaan miskiinada oo daaweyn gacmaha cirka u taagto waxay tiri yaa rab waadigi yirima sawdigi yirima inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu baynakum muharraman fala tadalamu ana dhulmiga iska xarimay baa ilaahay yiri ilaaha khaaliq razaqa ayaa kula adoomahayga ma dhulminayo dhulmiga dhexdiina xaraam ba ka yeelay hasku xad gudbina baa ilaahay yiri yaa rabbi anigu haddaan maqnaa adu miyaana joogin markii la dhulminayay maxaad adoonka iga qaban weyday bay ku tiri duca badan may ducaynin erayadaas ku ducaysatay laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo waxay tiri yaa rabbi miyaana joogin bay ku tiri markii xoolahayga sida loo galaayay aqalkayga marka buurta laga tuurayay adu miyaana joogin sawdigii yidhi ma aniga dhulmiga iska xarimay mise lay dhulmaadu maana joogin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil waa muntaqim oo u arguda adoomihiisa ilaahay dabayl intuu ilaahay keenay qasrigii intaa oo sana la dhisayay dabayl baa ilaahay intuu ka qaaday isagana buurta uu ilaahay gadaashiisa ka tuuray lidaalika dhulmiga waa xaaraan weeyaan ummaddu hadday dhulmi ku dhaqantana ummadaasi way duntaa hadday ummaddu cadaaladda ilaalisana ummadaasi way riiq dheeraataa way barakowdaa wayna jirtaa muslimiintu walaalayaal haddii mar ilaahay naga dhiga dad muslimiin oo shahaadanaya waa inaan diinta islaamka isku jeclaanaa diinteena islaamka waa inaan isku qadarinaa diinta islaamka waa inaan isku xidhiidhinaa jaarku jaarkiisa xaqiisa waa inuu iska ilaaliyaa xuquuqda jaarka waa saddex bay culimmadu yidhahdeen jaar xaq keliya uu leeyahay jaar laba xaq buu leeyahay jaar saddex xaq buu kugu leeyahay jaarka xaqa keliya kugu le waa jaarkee waa jaarka gaalka qof gaala daristiin ka soo qaad isku diin ma tihiin waa inaad tidhahdaa maaragtaanay xaqii jaarnimo kugu leeyahay jaarkaaga xaqiisa ilaali cabdullaahi bin cumar bnu khadaab radia allahu canhuma ayaa dariskiisu nin yahuudiya ayuu ahaa cabdullaahi markuu ka yimaado masaajidka reerkiisa wuxuu ku odhan jiray cuntada aad kariseen jaarkeen wax muuga geyseen buu odhan jiray bal firs waa yahuudi nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa layga iibsado waan ka guurayaa dalke oo waan bedelanayaa dhulke markaasaa lagu yidhi qiimihiisu waa imisa waa 120 kun oo dirham buu yidhi markaasaa lagu yidhi aqalka qiimihiisu waa 20 kun boqolka xageed ka keentaa lagu yidhi boqolku waa runtii aqalka qiimihiisu waa 20 laakiin boqolku waxa weeyaan sheekha dariska ilaah darisnimadiisa 100 kun ku iibinayaa buu yidhi waana kuma sheekhaasi waa cabdullaahi ibnu mubaarak allah u naxariiste qofka muslimka akhlaaqdaada waa inay gaaladu diinta ku soo gasho saad xuquuqdooda u ilaalinaysid waa inay diinta islaamka ku jeclaadaan tani waa addoontii kani waa addoonkii ha odhanine kani waa bani aadam oo ilaahay baa karaameeyey adigaa lagaa rabaa islaamnimada ilaahay kugu deeqay
inaad isagana aad u dabqato ood u bandhigtaa diinta islaamka xilka diintuna inuu wada saaran yahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac uu la dardaarmay nebigu ummadiisa dardaaranadiisi waxaa ka mid ahay aniga nebigama dambeeyo inakana ummad inagama dambayso kaa maanta shaahida ila joogow kiina maqangaadhsii buu rasuulku yidhi raggii markaa nebiga la joogay baa isxil qaaday way qaadeen oo risaaladan iyaka ina soo gaadhsiiyey diintu zaman walba dad bay leedahay oo u kaca zamankana xilki diineed inaguina saaran yahay haweenka xil diineed baa saaran odayada xil diineed baa saaran dhallinyarada xil diineed baa saaran gabdhaheena dhallinyarta xil diineed baa saaran marka diinta aan ka shaqayni weynay waxaa dhacday mujtamacii muslimka ahaa in dhallinyaradu dad kale ay ku daydaan oo dhaqan dad kale aan qaadanno oo caqli dad kale ay leeyihin aan ku soconno maxaa keenay in layna bedilo maanta waad ogtihiin mujtamaca islaamka meeshay doonayba ha joogaane waa layna bedelay waa layna saameeyey maxaa laguu saameeyey dadka dadaalaya waxay wadaan baa ku soo geli adigu laakiin haddaad dadaali lahayd xaqa adigu aad wadda ummadda kala gaari lahaa naftayda iyo lafihiinnaba waxaan ugu nasteexaynayaa inaan diinta dadaalkeyga aan u kacno oo aan culammada keliya iyo mucallimiinta iyo ducaadda keliya aan ku eegine haweenkeenna dhallinyaradeenna madaxdeenna mijaheenna caamadeenna culammadeenna tujaarteenna fuqaradeenna inaan diinta dadaalkeyga gacmaha isku qabsanno oo nidhaahno wactasimuu bixabli illaahi jamiican inaan sidaa diinteena u wada kacno insha allah wada diyaar garooba insha allah soo diyaar ma nihin insha allah